dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in si cad ay u taageeri doonto dowladda cusub ee dhawaantan la filayo in Soomaaliya yeelato kadib kulan ay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Miss Hillary Clinton ay Nairobi kula yeelatay madaxda dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan xubnaha saxiixiyaasha roadmap-ka kuwaas oo xilligan iyagu wax laga weydiiyo siyaasadda Soomaaliya majarahana u haya wadooyinka ay tahay in loo maro xalka Soomaaliya. Kenya waxay ka mid tahay wadamada Afrika ee Hillary Clinton ay booqashada ku soo martay sabab la xiriira siyaasadda Kenya iyo waliba tan dalka Soomaaliya oo xilligan meel xasaasi ah maraya marka la eego u diyaar garowga doorashada madaxtinimada walow tan dalka Soomaaliya ay ka dhowdahay tan Kenya oo iyana sanadka dambe la qaban doono. inkastoo kulan ay la yeelatay Hillary Clinton hogaamiyaasha xilligan haya talada dalka Soomaaliya ayaa haddana waxaa xadidnaa waqtiga loogu talagalay saxaafadda si ay wax badan ugu ogaadaan waxa laga hadlayay walow si kooban Clinton iyo madaxweyne Shariif ay wada hadleen warbaahinta goor dambe. shirkan maanta Nairobi ay ku yeesheen dowladda Mareykanka iyo madaxda Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa kulan laba dhinac ah oo quseeya ka hadalka qodobada roadmap-ka oo saxiixiyaashu ay fikrada isku dhaafsanayeen iyo waliba dhinaca kale kulanka ay la qaateen Miss Hillary Clinton. madaxweyne Shariif ayaa waxa kulanka Clinton ku heliyay ra'iisul wasaare gaas gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug iyo saraakiil ka socota Al-Sunna wal Jameeca. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in dowladeedu ay mar waliba ka warqabto isbedelada siyaasadeed ee ka dhacaya Soomaaliya ayna waqtigan kala hadashay madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale ka gudubka marxaladda kala guurka lagu tilmaamay tilaabooyinka la qaadayo kadib dowladda cusub iyo taageero ay sheegtay in Mareykanka uu mar waliba la garab taagan yahay shacabka Soomaaliyeed. Let me say how very pleased I am to have this opportunity to meet with waxaan aad ugu faraxsanahay inaan la kulmo madaxweynaha dowladda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo saraakiisha kale ee sarsare kuwaas oo isugu jira dowladda ku meel gaarka ah iyo qaybaha kale ee Soomaaliya. waxaan aad u soo dhaweynayaa horumarka ay ka shaqeeyeen hogaamiyaasha si loo ansixiyo oo loo dhameystiro agabka horumarineed ee loo baahan yahay. And I will be taasi oo ku aadan 20 Agoos oo ah xilliga laga baxayo ku meel gaarka. waxaan kala hadlay madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale waxyaabaha xilligan dowladda u haray ee dhanka hirgelinta roadmap-ka iyo kadib dowlad cusub waxyaabaha ay tahay in la sameeyo si dalka uu horumar u gaaro. waxaan taageeraynaa dowladda cusub ka Mareykan ahaan waxaan adduunka ka dhaadhicinaynaa taageero ay siiyaan dowladda cusub. shacabka Soomaaliyeed waa kuwa xilligan dhibaataysan waxayna fursad u helayaan inay helaan mustaqbal ifaya nabadgelyo iyo barwaaqo. betterment of all the Somali people. madaxweynaha dowladda ku meel gaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kadib gabagabadii kulanka la hadlay saxaafadda ayaa sheegay dowladda ahaan ay aad ugu faraxsan yihiin taageerada Mareykanka ayna isku afgarteen dhammaan qodobadii ay ka wada hadleen Miss Hillary Clinton. halkan waxa ka dhacay maanta laba shir. shirka koowaad waxa waa shirkii saxiixiyaasha shirka labaadna waxa waa shirkii aan la lahayn wasiiradda arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton. shirkii saxiixiyaasha waa socodona ilaa berrito wuxuuna ku saabsan yahay ka tashiga dhamaystirka roadmap-ka oo soo gaaray meel aad iyo aad u fiican. shirka labaad wuxuu ahaa shirka aan la yeelanay wasiiradda arrimaha dibadda iyo wafdiga la socday asaguna wuxuu xoog saarayay dhamaystirka processka iyo waxa ka dambeeya August ayuu xoog saarayay. wuxuu u dhacay si aad iyo aad u wanaagsan warbixin la kala dhageystay taageero dowladda Mareykanka ay muujiyeen inay diyaar la yihiin iyo in August uu ku dhamaado ku meel gaarkii ayna ka bilowdo nidaamkii cusba ee la rabay inuu bilowdo ah dowlad caadi ah oo Soomaaliya halkaas inay ka bilaabato. runtii waxa uu ahaa shir aad iyo aad looga dooday habka ugu wanaagsan ee looga gudbi karo marxaladda kala guurka inta dhiman loo dhameystiri karo sida ugu wanaagsan ee 4 sano soo socota wax loogu qaban karo in loo baahan yahay wada shaqayn xoogan iyo iskaashi. waxayna muujisay inay dowladda Mareykanka diyaar u tahay inay taageerto dowladda Soomaaliya dowladda cusub ay ma doonta shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan. annaguna waxaan uga mahadcelinay taageeradoodii hore inaan jecelnahay oo sheegnay in taageeradooda sii socoto waa naga ballan qaadeen. Mareykanka ayaa xilligan si aad ah isha ugu haya marxaladda kala guurka ee uu marayo dalka Soomaaliya
iyagoona si laba jibaaraya la dagaalanka xarakada al-shabaab oo waqtigan hub u qaybinaya dhammaan dhinacyada kasoo horjeeda xarakada al-shabaab. maxamed cusmaan xabiib, Royal TV, Nairobi.